mas-uuliyiinta xisbi siyaasadeedka mucaaradka ah ee wadani warbaahinta la hadlay ayaa ku dhaliilay xisbiga talada haya kulmiye xaaladda deegaanka Buuro Wadal gaar ahaan Bixin iyo Wow oo maamulka Puntland deegaaminka wada. Mas-uuliyiintan ayaa sheegay in xadgudubyada maamulka Puntland ku hayso qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sool xisbiga aanu dan ka lahayn difaacidda deegaanka gobolka Sool iyo xuduudda u dhaxaysa maamulka Puntland iyo Somaliland. halkan waxaan isugu nimid maanta xarunta xisbiga wadani qaybta labaad ee xaafadda sayidka oo ay isugu yimaadeen gudoomiyaasha Taleex Xudun Xaysimo Yagoori Kalabayd iyo Aracday dhammaan gudoomiyaasha dhan way fadhiyaan sababta maanta la isugu yimid waxa weeyaan sidii aan u cadeyn lahayn mowqifkayga ku aadan arrimaha ka jira xuduudaha iyo Wow halkaas ay faragelin soo sameeyeen oo ay gudaha u soo galeen masaafo 16 kiiloomitir ah ay gudaha u soo galeen maamul goboleedka Puntland iyo dowladda Soomaaliya ee suwan waxaan ku hadlaynaa horta marka hore marxaladda kaliya la shiday waa jawiga maanta ka jira adduunka waxaan ku hadlaynaa marka hore ciidamada Soomaaliland ee uu xisbiga kulmiye حيلا سعود كده باريا ودول فرديا waxaan salaamayaa shacabka wadani ee gudoomiyaasha garabka haweenka leh ee meesha isugu yimi bacda salaam waxaan ka tacsiyadeynayaa ninkii sida sharci darrada loogu dilay saaxil waxaan ka hadlayaa bixin malaha majeerteen shaqona kuma leh annaga iskala dalkayaga horena waanu difaacan jirnay hadeerna waanu difaacanayna wax xuduud maxaan ku dhahaayay binaadam ku qaadan karo ma jirto xuduud walba nin baaskan ninkii lahaana uu taagayahay horena dalkayaga ugu dhiman jiray gabagabadii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolka Sool ayaa sheegay hadduu yahay heer degmo heer tuulo heer gobol gudoomiyaashoodii waa ku dhanyihiin annaga isugu yeedhnay sababta la isugu yimina waxa weeye munaasabada ugu weyn ee maanta ka hadalnay waa laga hadlay dhulka lagu soo duulay la qabsaday la dhisanayo waliba dhismahana la raaciyay ayaanu ka hadlay marasaabka garowga ka hadlaya ee Puntland aan gobolka uu joogo ayaa degmooyin kale oo cashuurta kale xataa iska daa $2 aan isku qolaba ahayn dalka uu soo galay waa Somaliland lama ogola mana yeelayno xisbiga kulmiye haddii aan waxba ka qabanayn warbaan ku sugeynaa gobolka Sooltaan ama xisbiga wadani in la isku tashadaa haddii aan si degdeg ah wax looga qaban arinta Mawlid Ali telefishinka caalamiga Star